إشادان إس أرقنا إسكعوننا لابتي إشادان إس أرقنا إسكعوننا لابتي. What? Bro, what are you talking about, man? سدل عادي كو قورين جعيلك عطي صدي منا وعلى عليني. أنا غيرتها وذا أنكو صاحبني يا ويد الكيمبا ميرو بوا جوكتان وحاد لنا هاي وقت قاعدين وحنا دمانتين بموقالك الله يقري عيد ورب موقالك الله يكتكو قبطا وحرب سبحانه وتعالى عن كبرينا أمورها قف كاسولي هاي إلهي نؤسها لا إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد وبركة أنت أولادون كان إلهي أولاد باري هسي أنت جردون كان جر وناكسن المستقبل وناكسن أبوين هسيو غفل بموقالك الله يكتكو قبطا سيرة شرقريا وحرب سبحانه وتعالى عن كبرينا دم بيجود دم بيجوالد كود بين ولا فرب سبحانه وتعالى أنا وكو عزوما جنة الفردوس على إلهي سبحانه وتعالى أنا أوصيا مال أيسن فيلين وعن حاسد كلين هاي ومن شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود بين يهوجي قصارة وحرب سبحانه وتعالى عن كبر إن حاسدين أنت إن قريه ده هوجي قصارة إلهي وكتوسع لك طلع عجمه هي كوقا وموقعك لك مجعيدو صدحان وروضا مودي حامد وهو يسوى ماليات أو شيء أفر عرورة وانا هويا كحنوسانيسا حق دمركا ماشي اي شعبك Soomaaliyeed ka caawin lahaayeen ayagii ayaaba aflagaada iyo xumaata la daba taagan xasan toob oo ah nin aad uga faa'iideystay dadiyowga xanuunsan ee ka xanuunsanaya xagga dhimirka ayaa gacanta ku dhigay hooyadan Soomaaliyeed ee korsanaysa afarta caruurta ah xasan toob ayaana lagu yaqaanaa arxan darray inuu ka waalo dadka masaakiinta ah iyo kuwa aan dhimirkoodu dhameystirnayn xasan waa wiil Soomaaliyeed oo duruufta u geysay inuu dadka waalwaalan iyo dadka masaakiinta ah uga faa'iideysto baahida duruufeed ee heestay baahida dhaqaale maraynu qadka telefoonka kula hadalna hooyadan ayaa waxay noo sheegtay inay heestaas u soo qaaday duruuf dhaqaale oo heystay awgeed maadaama uu xasan toob u ballan qaaday inuu siin doono lacag $50 haddaba hooyadan Soomaaliyeed ayaa ka codstay bulshada Soomaaliyeed inay iska cafiyaan maadaama ay soo bandhigtay fiidiyo akhlaaq xumo ah oo aan looga baran gabdhaha Soomaaliyeed waxayna xasan toob ka codstay inuu ka saaro fiidiyogan maadaama uu janaalka asaga leeyahay laakiin xasan toob oo lagu yaqaan xumaanta ayaa ka biyadiiday inuu fiidiyogan ka saaro rawdo walaalaheed ayaana sheegay inay xasan toob aysan ka aqbali doonin in walaashood uu lacag ka raadiyo jirkeeda sidaa awgeed ay ka xigaan inay isdilaan taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq John ayaana la wargeliyay in xasan toob uu ka wada akhlaaq xumo baraha bulshada صادق ayaana ballan qaaday inuu xasan toob kula xisaabtami doono waxyaabaha uu ku sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed qof walba Soomaaliya waxa looga baahan yahay inuu la dagaalo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada lagu sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed ee ma ahan in la caayo gabar maskiina oo xagga dhimirka ka xanuunsanaysa oo la aqli badiyay ayadoona looga faa'iideystay duruufo dhaqaale oo haysta awgeed haddaba maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed waa inay ka hortagaan dhaqan xumada ayna dacweeyaan xasan toob oo ah qof caadeystay inuu gabdhaha Soomaaliyeed fadeexeeyo fiidiyowyada uu lacag ku raadsado haddaadan xumaha gacantaada ku reebi karin waa qasab inaad habartaa si aad uga hortagto inuu sii faafo xumahaas mana ahan inaad aflagaadeyso qof dhimirka ka xanuunsanaya oo laga aqli badiyo baahida duruufeed ee heestay baahida dhaqaale maraynu qadka telefoonka kula hadalna hooyadan ayaa waxay noo sheegtay inay heestaas u soo qaaday duruuf dhaqaale oo heystay awgeed maadaama uu xasan toob u ballan qaaday inuu siin doono lacag $50 haddaba hooyadan Soomaaliyeed ayaa ka codstay bulshada Soomaaliyeed inay iska cafiyaan maadaama ay soo bandhigtay fiidiyo akhlaaq xumo ah oo aan looga baran gabdhaha Soomaaliyeed waxayna xasan toob ka codstay inuu ka saaro fiidiyogan maadaama uu janaalka asaga leeyahay laakiin xasan toob oo lagu yaqaan xumaanta ayaa ka biyadiiday inuu fiidiyogan ka saaro rawdo walaalaheed ayaana sheegay inay xasan toob aysan ka aqbali doonin in walaashood uu lacag ka raadiyo jirkeeda sidaa awgeed ay ka xigaan inay isdilaan taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq John ayaana la wargeliyay in xasan toob uu ka wada akhlaaq xumo baraha bulshada صادق ayaana ballan qaaday inuu xasan toob kula xisaabtami doono waxyaabaha uu ku sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed qof walba Soomaaliya waxa looga baahan yahay inuu la dagaalo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada lagu sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed ee ma ahan in la caayo gabar maskiina oo xagga dhimirka ka xanuunsanaysa oo la aqli badiyay ayadoona looga faa'iideystay duruufo dhaqaale oo haysta awgeed haddaba maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed waa inay ka hortagaan dhaqan xumada ayna dacweeyaan xasan toob oo ah qof caadeystay inuu gabdhaha Soomaaliyeed fadeexeeyo fiidiyowyada uu lacag ku raadsado haddaadan xumaha gacantaada ku reebi karin waa qasab inaad habartaa si aad uga hortagto inuu sii faafo xumahaas mana ahan inaad aflagaadeyso qof dhimirka ka xanuunsanaya oo laga aqli badiyo What? Bro, what are you talking about, man? سدل عادي كو قورين
jacaylka cadceesaday